booqashada xildhibaanada ay ku tagtay cisbitaalka guud ee degmada Baraawe ayaa ku soo aadaysa xilli cisbitaalka ay ka jirto baahiyo badan oo ku aadan daawooyinka oo gaabsi ah. Xildhibaanada oo la hadashay warbaahinta ayaa baaq u dirtay cid kasta oo wax ka qaban karta xaaladda adag ee ka jirta cisbitaalka guud ee Baraawe. shaqaalaha qaybooda kala duwan dhammaan waa salaamintii salaamta islaamka subaanta waa idin soo booqday. waxaan rabaa inaan ogaado xaaladda dhabta ah oo ka jirto isbitaalka. mar badan oo aan imaado waa jiraa idan jaanis ugu helin aadaan uga xumahay. ilan maanta waa ugu soo talagalay inaan dhowr beri aan joogo baahida dhabta ah ka jirto inaan ogaado iyo xogtii waxay ku shaqeynayaan dhammaan inaan ogaado ribood ahaan markaas aniga aan la wadaago baarlamaankii oo caafimaadka quseeyay in loo gudbiyo laga doodo baarlamaanka hortiisa wilaayada Hiiraan insha Allah. Dhanka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada Cabdikariin Sheekh Cali Cumar ayaa baaq u diray maamulka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka in sida ugu dhaqsiyaha badan daawooyin loo gaarsiiyo cisbitaalka. Aqoonta dheer kuudiibina madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan lafta galeen inaan naga gaarsiisid dhibaatooyinkiina ama dhibaatooyinka caafimaadka ama dhibaatooyinka kale oo fara badan oo ka jira degmada. Hadda waxaa ku jira mamnuuca caafimaadka ku jirnaa insha Allah. baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka si degdeg ah oo dadnimo iyo bini'aadanimo ku jirto in loogu kala daawo caafimaad taasoo ay tahay lama soo marsiin karo hawada, lama soo marsiin karo dhulka, lama soo marsiin karo fadda dilida dhibaatada leedahay. wax kasta loogu talagalo in la soo gaarsiiyo dowladda anaga gacanteeda way soo gaarsiin kartaa. hatta waxay noo soo diri karaan diyaarada khaas ah ee noogu soo yiin karaan dawladda loo keenay dawladda si heli karaan maadaama anaga aan meel geesa Soomaalida maanta Kismaayo ilaa iyo Foonto Marko inta u dhaxaysan isbitaalkan uu isbitaal u yahay dhibaato kasta dhacna la keeno. sidaas darteed waxaa ka codsanaynaa in xoogga aadna saafid New Waysna way ku mahadsan tahay wax qabadka Baraawe iyo dadweynaheeda ay u qabatay biidnillaahi alkariim oo ahayd haddii mutaqana mushaarici tabarteeda ah طول لا تقصد الله سيد الله تقول الله ترى شغالين وكم يدي دكتورة طول كل ما يا لكن أنت سامعنا ما تدرس كل ما وحرت قرن أيام يجي إن شاء الله. دكتور عبد الله النوراني وأقاسمها إسبيتالك جود أي اسم الشيء إن باهي بدن أي كجرت إسبيتالك. وحنا نطلب وقت إسبيتالك وين كنا براوي اللواء طالون الرحمن marka waxaa leenahay Faaruq Raxmaan xildhibaan soo dhaw isbitaalka waa kan isbitaalka Degmada Baraawe oo baadiyaha ka dhaw magaalada ka dhaw oo la keenaa waxaa lagu qabtaa qaliimada kala duwan sida naagaha uurka leh hormooyinka iyo waxaas ma la sameeyaa anigoo kaashanaya hay'adaha isbitaalka jooga taas waa lagu sameeyaa Hani Xilo Janno KGS TV Baraawe.